waa isku tashi bulsho kaas oo bilicda iyo quruxda deegaanka dib loogu soo celinayo. Isku tashigan bulsho ee bilicda dib loogu soo celinayo waxaa horkacaya maayirka degmada Kismaayo Cumar Cabdulaahi Maxamed Faraweyne. Isku tashigan oo isxilqaan ah ayaa ujeedkiisu yahay in magaalada lagaga guro guud ahaan cali garoobka ama geedka garanwaaga loo yaqaano oo magaalada muddooyinkii u dambeeyay qaybo ka mid ah magaalada aad ugu fidayay. Halkaan hadda ku suganahay waa wadada halbowlaha ee magaalada Kismaayo taa oo isku xirta madaxtooyada iyo airportka. Waxaa hadda ka socota hawsha looga gurayo geedka garanwaaga ah taas oo ujeedkoodu yahay in nadaafadda qayb loogaga qaato isla markaasina bilicda wadooyinka magaalada Kismaayo iyo xaafadaha magaaladaba dib loogu soo celiyo. Maayarka degmada Kismaayo oo hadda halkan ku sugnaa ayaa ka dhawaajiyay in ujeedkiisu uu yahay in magaalada dib loo cagaariyo quruxdeeda iyo bilicdeedana dib loo soo celiyo. dhalinyaro badan oo kala duwan oo isxilqaantay ayaa barnaamijkan ka shaqaynaysa iyaga oo tan iyo saakay subaxnimadii hore halkan u jooga. Maalmaha soo socdana waxa ay ka shaqayn doonaan xaafadaha kala duwan ee degmada Kismaayo. Qaar ka mid ah gudoomiyaasha xaafadaha degmada Kismaayo ayaa iyaguna halkan ku sugnaa. Waxa iyaga laftirkoodu qayb ka yihiin ololahan dib u soo celinta bilicda degmada Kismaayo. gudoomiyaha degmada Kismaayo Mudane Faraweyne ayaa muddooyinkii u dambeeyay waday qorshe dib loogu cagaaranayo degmada Kismaayo isla markaasina looga gurayo qashinka iyo waxyaabaha bilicda lidiga ku ah. gudoomiyaha degmada Kismaayo halkan hadda warbaahinta kula hadlay ayaana ka sheekeeyay ujeedka ay kala yihiin ololahan waxa uu yahay. waxa uu shacabka kala duwan ee degmada Kismaayo ugu baaqay inay qayb lixaad leh ka qaataan isxilqaanka.